haddaad qof wanaagsan tahay meelo wanaagsan buu ilaahay ku dejinayaa oo Soomaalida iyo Islaamka iyo intaba aad ka helayso. Wadanka waan ognahay dagaal baa ka soo dhacay. Waxaan ka hadlayaa Ogaadeniya ama Somali State. Anigu gobolka aan ka soo laabtay hadda midnimo u baahan yahay. Nabad way haystaan. Nabaduna waxay ku timid dhiiggii wiilashii oon laf dhibanayay shacabkeena. Siyaasadda waa siyaabo loo kala arkaa, laakiin siyaasadda waa in si caafimaad qabta loogu loolamo iyo wada dhalashada dadka iyo nabadgelyada waa inaan la siyaasadaysin. gaar ahaan hadda colaadda ka socota doolo ka dhacday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan. waa maalin khamiis ah. Bisha tobnaadna waa 3 saan filayo. waxaan ku soo laabtay waddankaygii labaad ee UK kadib markii aan socdaal ku gaadhay booqasho iyo barakaysan dhulkii hooyo Somali State ama Ogaadeniya. maasha Allah way wanaagsan tahay hawadu annaga inkastoo xilliga qaboobaha lagu jiro, laakiin saaka qoraxdii baa bal soo yara baxayso. waxaan aaday beertanadii waan yara aaday oo nasashada ama raaxada meelaha dadka loo sameeyo la isugu yimaado. inkastoo aan waddankiina qabdarrana ku soo arkay oo tii aan barbar dhigahayay tii mahad alleh qabdarro ku taalay meesha Kifladoorka. marka way weyn tahay tan oo salaada ciidda lagu tukanayo maxaa la dhihi jiray ilaa 200,000 baa ku tukatay ciiddii. waxay ahayd 2016 maraan sanad joogay waddanka. markaas halkan waxaa ku tukatay oo baaggaas waa small heath baag weeyaan. waxaa ku tukatay qoraxdiina halkaas ka soo baxaysaa 200,000 oo qof baa ku tukatay. waa magaalo muslimiintu ku badan tahay. haddaad qof wanaagsan tahay meelo wanaagsan buu ilaahay ku dejinayaa oo Soomaalida iyo Islaamka iyo intaba aad ka helayso. farxadna waad iskaga noolaanaysaa. marka ka shaqee wax wanaagsan. ha ka shaqaynin waxyaabo bulshada kala geynahaya. maaragtay wax dadka isku hurinaya, wax dadka kala geynahaya ama cadaawad kala dhexdhigahaya. wax wanaagsan ka shaqee. marka ajirna waad ka heli, aduguna farxad baad ku noolaani. marka cuqdadna cidna ha u qaadin, cidna adigu cuqdad maaragtay yani kuu qaadin. marka haddaad tahay qof wanaagsan oo muslima oo bini aadan wanaagsan, waa inaad wax wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay ka shaqayso. gaar ahaan innagu haddaan Soomaali nahay way nagu badan tahay munaafaqadda iyo waxyaabaha xunxun oo laga shaqeeyo. marka bal waxaad isku daydaan qof walba haddaad doonayso ilaan adduunka oo nimco iyo aakhiro jannada buu qof walba raadinayaa. taana waxay ku xidhan tahay inaad wax wanaagsan ka shaqayso. diinta islaamkuna waa ina amartay iyo dhaqankeena wanaagsanba. waa inaad dadka si wanaagsan ula dhaqanto oo dabeecadaadu ay wanaagsanaato. xadiiskii baa ahaa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan ayaa ku qoran inaad ilaahayna ka cabsato dadkana si wanaagsan ula dhaqanto. marka taa adiga dantaada ku jirta. marka anigu gobolka aan ka soo laabtay hadda midnimo u baahan yahay. nabad way haystaan. nabaduna waxay ku timid dhiiggii wiilashii oon laf dhibanayay shacabkeena birlabka oo halgamay. hadda gobolkeena kaliya unbay nabadu ka jirtaa. marka nabadda haddii la geliyo waxyaabo kale maaragtay dhibaato kale unbay nagu noqonin. marka wixii la soo maray waa la soo maray. waddanka waan ognahay dagaal baa ka soo dhacay. waxaan ka hadlayaa Ogaadeniya ama Somali State. haddana maaragtay nabad baa ka jirta. siyaasadda waa siyaabo loo kala arkaa, laakiin siyaasadda waa in si caafimaad qabta loogu loolamo. laakiin aan la siyaasadayn arrimaha masiiriga iyo wada dhalashada dadka iyo nabadgelyada waa inaan la siyaasadaysin. gaar ahaan hadda colaadda ka socota doolo ka dhacday iyo dilkii foosha xumaaya masaajidka dhexda ka dhacay ee dhaqanka maaragtay ka soo horjeeday dadka waddanka degan islaamnimada iyo Soomaalida ka soo horjeeday. waa in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo. waxaa la ii sheegayaa gobolka in ciidamo badan la geeyey. ciidamada laftooda ay tacaddi geysteen baa la ii sheegayaa. marka baaritaankeedu waxay ku xidhan tahay anigu way jirtaa iyo ma jirta toona dhihi maayo, laakiin in yani tacadiyo jiraan oo aan dadkii loo abayeelin oo markii la geeyey walaa tasiiru waasiratun wisra ukhraa weeye. collective punishment wax la yidhahdana kama jira adduunka. marka hadday dad wax geysteen waa in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo. dadkii waxaa geystay in lasoo qabto weeyaan. laakiin dad ama qaraabo la'ah ama meeshii deganaa sidii waayii hore dhici jirtay inay dhibaato loo geysto ciidamo intii lagu sii daayo waa khalad. marka anigu waxaan u arkaa xalka gobolka doolana dadka gobolka degan ee la dhashay dadkaas oo ogaadeenka ama afsamuhu ugu horeeyaan dada oo odayaala waa in loo diro oo ay hawsha galaan oo maaragtay dad xigta ah
oo hawshan ka danqanaya oo ka xun inay galaan hawsha oo si fiican loo sameeyo. Waxaan arkay odayaal waddanka jooga oo yidhi hadda ka hor baa naloo diiday inaan tagno meesha. Marka hadday arrintaas u jirto waa khalad. Marka dawladdu amniga ha sugto, xalka iyo maaragtay xagga dhaqankana odayaasha ha u dayso. Ha laga waantoomo, hana laga fogaado wixii bulshada kala geenaya. Dadka waddanka jooga waa dad wada dhashay oo walaalo ah oo oo maaragtay isku huran oo cadow badan leh. Uma baahna in iyaga la kala qoqobo la faquuqo iyadoo welibana siyaasadaysan. Cid kastoo wada ama urur ha noqdaan ama dawladda ha noqdaan ma ka yeelayno in dadka waddanka degan ee wada dhashay in la kala siyaasad ahaan iyagoo loo adeegsanayo loo kala jiidanayo in qaab noocaas la sameeyo. Marka waxaan kula talinayaa dadka waxgaradka, dawladda, odayaasha, cid walba in wanaagga iyo wadajirka laga qayb qaato. Waxyaabaha kale oo ummadda kala geenayana in la iska daayo. intaasaan fariintaasaan soo gudbinayaa magaalada Birmingham dalka UK wayaan waddankana waan tagay waana tagi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.